ودني maxay kula tahay halka Soomaaliya afari nusafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa Kalamaane oo duceeyay allay leedahay araanidii warrama Soomaalidu musuqmaasuqay sheegtaa mana taqaane musuqmaasi waan hatana baraase wariya ka soo banjirsanay qaadi gariyo waleere horta minaan qaada iyo qarshe la soo xirin Soomaaliya musuq wiligeer ka bixi mayso Abdullah miyaan maqal musuqmaasuq Soomaali waa meheeradeedii waandooyo horta musuq iyo maasuq waa jufade oo ambar lahaad ko higa maleefoon oo difaaci faka dhaladeen warnamada war ma haysiina waxa la yiri nin xildhibaan markii doorashada soo dhawaatay wuxuu tagay deegaankiisii wuxuu tagay dugsi hoose ku yaalay ardadii su'aal weydiiyay wuxuu yiri ma taqaaniin xayawaan dheer oo dadku rarto wiilaa u jawaabo wuxuu yiri waa geela aqil tahay yiri ii sheeg abaa muxuu yahay abaa waa nabadoon buu yiri wiilkii nabadoonnadu waa aqilo ubadkooduna waa aqilo yiri wuxuu yiri su'aal kale xayawaan afar lugood leh oo caana badan yaa sheegi kara arday kale ka jawaabo wuxuu yiri waa looda ii sheeg yiri adiga abaa muxuu yahay معلم وير معلمينتو وعلم بدنيهين وبدكودنا sidoo kale u cilmi badan yihiin wiil ayaa ii sheegay kara xayawaan baa Allah duula wiil ka carooday ninkan su'aalo xumaantiisa ayaa yiri ana aqaan waana yaxaas markaas inta xanaaqa xildhibaankii wuxuu yiri waxa ma kala ogide aabaha muxuu yahay wiilkii wuxuu ku jawaabay aabahay waa amiirka tababara shabaabka degmada xildhibaankii oo inta naxay baqaya ayaa ku jawaabay wiil wanaagsan baa tahayo yaxaasku marmar waa duula su'aalo uu amalaysan ka gaab durana eedan goraday haani madiidana garamid mudoo han dhiibi jartiyo yaahu xildhibaankii dhamaay mugow amiir ku tagay miyuu ina naxayo ogolaada inuu yaxaasku marmar duulo sheekada waxa qoray wariye cilmi Ismaan Faarax Boodhari war sheekadaas waa musuqmaasuqe hadalka hayga musuqmaasuqin inay dhageysto waxa la yiri jacayl musuqmaasuqiisa waxaan kula yaabay beenta hadaad soo weysa sheeko oo heli maysid caashaq waxa la rabaa haweenka markii la shukaansanayo inaan loo sheegin daacad wixii jirana aad ka qariso markaana la soo kaxaysto adoo tabaq kula heshiiyay qol jinkada lagu arooso dabeedna dagaal bilowdo ilaa waasaad rabteen ajiib dabaq ka dhacaha markay gabar wiil sirayso ama wiil gabar sirayo waxay isdhahaan xabiibi daraada baan riyooday xalanka seexan waayay sidaan ku raadinayay cidiyihii baa isiibtay adduunkaada u fiican hadaadan lacag siinin adduunkaada u liita iimaanka Allah gari horyaas ugu baxay iimaanka xildoon iyo naaga doonna waxa ka dhaxeeya beenta hadaynaan ugu qancayna qudbadihii madaxda raadsha xildoonka markay ahaydna waxay sheegeen dhageysta marqaatina ay ahaada xildoonka iyo naaga doonka inay ka dhaxayso beentu ajaa'ib warana naaga doonka ma bal sheekoysane laakiin madiideen oo xildoonka ee qudbadiyo dhageensidii subugaaseen waraabiyaan wiilishoona eray jireen waana beenganaga jarti manasiraan markala alla maxuu gabar been u sheegay midkan guriga gubay waxa la yiri dood iyo war badan lama rabo mudax ka daabayne dadku waa walaal danina waa kala wadaysa war sugaal Abdullah kormay baaray lamadii walaal leelankii beesile waa wiin war hadda waxay maraysaa labada siyaasi kii la wataa weyn war Axmed waran laba wuxuu yiri laxdii lacag hesha waayahan leader bay noqon taladiin baad tuur haydan ka soo baxda nagu kala wada ma hadii kadib كركين وهقاعه وريانا ومدي تشويش والله طليا ولا تشمع تكتير كبوده تنهيسه ما هنا